وحرمنا عاصمة الجروة إن نقطة عاصمة وعاصمة هذا وأمنية بدن عاصمتها سوماليا الله أورنكرا وحرمنا إن لو أقولادو إن كرتون نقالهن وحرمنا إن لو أقولاد هيدا الدولة ده وحرمنا إن سيمنار هذا لو أقولادو وحرمنا إن مشاريع ذا لو أقولادو لكن مرة بنو اللي هذا الدولة مسوق لي كرتو مرة وما قلنته محاجرة هجام النمو يهرمود نمو سلاسمة وحرمنا إن جروا أي هرمود نقطة ربنا مرة بنا إن جدال استأكت مرة ما مدندين تاريخ مدو إن بنتلان أكو قرنت ما مدندين إلا إذا هذا دين عفسكي والله فشل ماي يا فشلي بنتلان لما قاعدة كرتاس وحان ربعون ويريا دولة بنتلان يا مدح هذا ولا ليال arrimaha deyn cafisku siyaasad ma aha dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warrama yaa mas'uul ka noqonaya shacabka Puntland mas'uul kama noqonayaan maamulka mas'uul ka noqonaya arrintaas haday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow ah bay noqonaysaa walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr kelimo ka dhaho Puntland iyo reer Puntland reer Puntland waa la yaqaanaa shacab Soomaaliyeed oo qiimo badan oo taariikh leh oo dadka Soomaaliyeed ay yaqaanaan from lixdankii markii xorriyadda la qaatay hormuud ka ahaa dawlad dhiska iyo ummadnimada dadka Soomaaliyeed waay macruuf waay Soomaalidu way taqaanaa madaxdii soo martay dalkan odayaashii iyo isimadii isooga soo dambeeyay soo kala dhaxday iyo boqoradii ganacsatadii waaweyneed dalkan joogtay ee la yaqaanay aqoon-yahanadii waaweynaa ee qayb kasta laha dalkan waxay ka soo galeen waan ognahay reer Puntland dawladnimada Soomaaliya baadi goobkeedii meel walba u soo mareen waxay soo mareen ayagoo hoggaan ka ah oo hormuud ku ah from Nairobi to Jowhar to Baydhaba to Villa Somalia waxay ku bixiyeen mood iyo nool dawlad Soomaaliyeed si ay uga dhaqaaqdo geeska Afrika waxay Soomaalida u keeneen oo horseedeen oo hormuud ka ahaayeen nidaamka xukunka dalka Soomaaliyeed ee federalismka waxay hormuud ka ahaayeen yagleelidii iyo abuuridii dastuurka ku meel gaarka ee maanta dalkani uu haysta ee federaalka dib u heshiisiintii intaba waxaan ku jirnaa dawlad dhis Puntland iyo shacabka Puntland oo taariikhda leh maanta meesha maamulka iyo dawladda Puntland ay ka joogaan dawlad dhiska Soomaaliya ma aha meel u qalanta ma aha hormuudnimo ma aha meeshii la rabay inay istaagaan ma aha meel aan u qalminay taagayeen waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan dhisidiisa iyo dawlad dhisida socota ee Soomaaliya taariikhdii lagu yaqaanay maamulka Puntland iyo dawladda Puntland waxaan rabnaa inaynan shacabkaas taariikhdiisa aysan ka soo celin meeshii lagu yaqaanay waxaan rabnaa siday hormuud u ahaan jireen inay hormuud u ahaadaan aan rabnaa waa socdaa dawlad dhiskii waxaan rabnaa caasimadda Garowe inay noqoto caasimad waa caasimadda hadda ugu amniga badan caasimadaha Soomaaliya la oran karaa waxaan rabnaa in loo ogolaado inay korto dhaqaale ahaan waxaan rabnaa in loo ogolaado hay'adaha dawladda waxaan rabnaa in seminaarada loo ogolaado waxaan rabnaa in mashaariicda loo ogolaado waxaan rabnaa in la ogolaado dawladda federaalka ee Soomaaliya
in ay dhaqaale geliso oo ay horumar geliso waxaan rabnaa in ay ka faa'iideysato nabadgelyada ay haysato iyo deganaanshaha inay uga faa'iideysato dhinaca koritaanka dhaqaalaha iyo inay noqoto multaqaha iyo meesha ay isugu tagaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha Soomaaliyeed baan rabnaa laakiin ma rabno in la yiraahdo dawladdu ma soo gali karto uma qalanto maxaa jira hogaaminimo iyo hormuudnimo sidaas ma aha waxaan rabnaa in garow ay hormuud noqotaan rabnaa ma rabna inay gadaal istaagto ma rabno waa inaan gadaal la istaajinin dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macallin ayaan diyaar u nahay inaan hawl gelino oo mushaar siino oo ay waxbarashada Puntlandna micno ku soo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagan yahay maxaa la hor taagan yahay dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa wad fiicantiin markaan shaqo ay heli lahayn ma shaqadan ka hor istaagayna dhalinyarada waa in loo ogolaado inay shaqeystaan dawladoodu inay shaqo siiso waa in loo ogolaado ciidan iyo xoog dalka Soomaaliyeed iyo hay'ado amni ah dhismaya waa in loo ogolaado dhalinyarada reer Puntland inay hormuud ka ahaadaan ciidamadaas waa in loo ogolaado in ay qaybta ugu weyn ka noqdaan ayagu laakiin waa in laga hor istaagin sax ma aha in dhalinyarada reer Puntland la yiraahdo ciidamada ka mid noqonaysaan macallimiin noqon maysaan shaqo la siin maayo صح معها إن مشاريع ذا اللي هريستاجو وهدي وزير كي صاصي حي الربيين السوفليو ليرا هذا ما يمانكرو هدي ليرا هذا مشروعي وزير كي غير بنتلان هير استيدها هل كان يمان لها يديدنا هي أدها هي مشاريع ذا قيبتي سكا قاضي لها ما تجيس هدي ليرا هذا سي مشاريع ذا اللوجينية ما هو على الربا إن بنتلان مشاريع ذو كي يستقطع على الربا يا سمسؤول كان نقراي لما أقبلك أنا وحاس وحان عطسنا إن هرمركا إن سياسة لقى صار هل لك لساره هرمركا إن سياسة دوين لك لساره اسمه يلان كران وحاكا سيدران انتا وحانوغنا هاي حكومة دي استبجوغا هاي الصوماليا waxaa la soo bilaabay arrin la yiraahdo deyn cafis oo geedi dheer loo soo galay oo shuruudo badan oo aad u fara badan oo dhib badan la inagu xiray oo intii ugu badnayd 6 bilood 7 bilood la soo dhaafay xukuumadana ay ka soo baxday oo ogtihiin in ka badan 12 sharci oo shuruucdii ugu adadka oo conditions ah in fara badan oo kamid ah iyo shuruudii lagu xiray ahaa ayaa xukuumaddu soo samaystay baarlamaankeena labada aqalna ayuu ku mahadsan ay mariyeen wixii kale oo dhanaan taqriiban 90% dhamaynay waxaa jira waxyaabo yar yar oo u baahan oo shuruud u ah wada shaqaynta dawladda federaalka iyo isteedyada wasaaradooda maaliyadda dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyaddu way wada shaqeeyaan marka laga reebo Puntland haddii deyn cafiskii ay kaabiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warrama يا مسؤول كان نقناي شعب كبندلان مسؤول كمان نقنايان مامل كان مسؤول كان نقناي أرنتاس هذا دعوة وحين نقن دونتا أرن تاريخ ذا قشة تاريخ مذو أبين نقنايس وحنوشيك يا دتك سوماليات غير بندلان ولا لا هي السمادة سياسيين تا أقوياء هندا civil society كا وضد بسل وقاله وواحد البوق waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto ma mudnidin
إلا يراهدو دين عفسكي والله فشل مي يا فشليي بنتلان لما قادن كرتاس waxaan rabaa aan u yeerayaa dawladda Puntland iyo madaxdeeda walaalayaal arrimaha deyn cafisku siyaasad ma aha siyaasadda ka saara la shaqeeya dawladda federaalka aynu iska dulqaadno deyntaas ceebtaas ha soo jiidina calaf la'aantaasna ha u soo jiidina ummadda Soomaaliyeed wixii aan soo sameeyno oo dhanna tacab khasaar ha ka dhigina shacabka reer Puntland waxaan rabaa inay taas ogaadaan arrintaas jirta waa arrin muhiim ah oo ay tahay inay ka dhiidiyaan oo ay diidaan in magacooda lagu fashiliyo geediga dheer ee loo soo galay deyn cafiska arrimaha siyaasadda doorashadu iyo qof iyo cod waa meesha aan soconno waa waxa loo baahan yahay laakiin hal shardi bay leedahay halka shardi ay leedahay waa hal marka xataa la fiiriyo diinta islaamka haddii uu munkar jiro wax munkar ah haduu jiro munkarka in la suuliyo haday keenayso munkar ka weyn waxaa mamnuuca munkarka in la suuliyo waa in la iska daayo munkarkaas ha joog in odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caanamaalay laakiin waa laga fiican yahay waxa fiican in dadku isdoortaan oo si xor loo doorto waana meesha loo socdo laakiin ka warrama haday keenayso burburka Puntland sidii lagu soo caanamaalay baa geedi caanale ah markaas waa in sidii lagu soo caanamaalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay la yimaada haddii la guurayo oo meeshii laga guurayo waa in la isku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhaweynaynaa haday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan la isla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax Puntland dhibaato u keenaya maya midna way jirtaaba sideedaba gorgortan ka gali mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khad ahmar qof laga yeelaya ma jirto waa loo soo dhintay waa loo soo halgamay waa loo soo rafaaday dad aqli leh oo maskax leh ayaa xilli dadka Soomaaliyeed ay qafla ku jireen wax fahmay siday ku noolaan lahaayeen tashaday arrin aan looga horeynin la yimid state-ka asaas ku dhismay laguma ciyaari karo lama dumin karo halis lama gelin karo ma ogolaanayno mana yeelayna taas marka ama si nabadgeliya oo la isla wada ogol yahay hal loo wada guuro ama sidii horeyba u dhacday hadii lugta gorayadu heelada lug bay ku daydaa hadii ay u gashana waa okay hadii kale dib ay uga baxdaaye sidii uu madaxweyne Faroole sameeyay hadii ay lugta u gali weyday qoladan dib ha uga baxaan lugta yeenan gubin meeshaas lama ogolaan inay gubaan waxaan ugu baaqayaa odayaasha inay nabadgelyada laga shaqeeyo waxaan ugu baanayaa in la iskaashado waxaan ugu baaqayaa in la ilaaliyo hareeraha laga istaago Puntland nabadgelyadeeda deganaanshaheeda nolosheeda qalbiga inooga taala muhiim bay noo tahay cidna kuma mucaaradayno cidna kuma taageerayno siyaasaddaas waa mar kale laakiin hadda nabadgelyada iyo isla socodka ayaa muhiim ah marka nabadgelyada hal la ilaaliyo taana intaas aan ka dhigi lahaa